waxaan rabnaa inaan ka warbixino howlgalladii barakeysnaa ee ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey gobolka Shabeellada Dhexe. Shalay waxaa howlgal barakeysan oo ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Laba Garas. Waxaa loogu tegay khawaarijta Al-Habaab oo cambuuladooda iska karsanayso oo maalin soon iyo maalin aan soon kala aqoonin. Waxaan hore ula wadaagnay shacabka Soomaaliyeed inay Ramadaanka xoolo qashaan, ciidamada qaranka iyo dadka deegaankan ay weeraraan xilliga afurka si ay u carqaladeeyaan afurka maadaama aysan ahayn kuwo sooman. diinteena islaamka soomka qofku wuxuu laga reebi karaa ama uu afuri karaa asagoo qaangaar ah oo waalneyn markuu musaafir yahay ama uu xanuunsan yahay qala laga rabo. laakiin qof caafimaad qabo oo 20 jir ah oo qaangaar ah oo waalneyn inuu iska cuno maalin Ramadaan ah oo yiraahdo amiirka iga dul qaaday wax la yaab la waay. diinteena islaamka inaysan shaqo iyo shuqul ku lahayn ayayna ku tusaysaa halkaas. waxaana ciidamada qaranka ay soo bandhigeen oo hogaaminayay Cornel Nuur Farey ayagoo cambuuladooda karsanayo oo aysan ka qasneen maalin Ramadaan wax cunayaan. sidaas oo kale maalin hore waxa ciidamada qaranka ay ka kor dhaceen ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo xoolo halkaas ku qalanayo. sidaas oo kale waxaan rabnaa maanta howlgalladii barakeysnaa ee ka dhacay Boos Hareeri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga hortageen dhagarta ay maleegayeen khawaarijta Al-Habaab inay ciidamada bogaadiyo qaybooda kala duwan. sidaas oo kale kuwa shahiidana aan dhaho duuba liman qatala muqataluhu xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam dukumeentiga nabiga uu saxiixay uu yiri qofkii ku dhinta khawaarijta gacantooda ama dilo ayaa ahlu janno ah. waxaan leeyahay marka raggii naga shahiiday Allah u naxariisto xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam ayayna raggaas ayaa ku dul arooray. rag loo baqaayo ama walwal naga haayo ama ka naxeenana ma ahan. inta dhaawacantana Allah caafiyo. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka qaybooda kala duwan waxaan kula dardaarmayaa ayagoo ku jiro bishii Ramadaan inay haddana ku cibaadeystaan dhiigga khawaarijta ay daadiyaan ay dardaraan dalkan ay ka badbaadiyaan diinta islaamka ee suuban ay ka badbaadiyaan dadka culimada sheeganaya haddana Ramadaanka iska cunayo. waxaan leenahay marka shacabka Soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa inaysan Al-Shabaab wax diin iyo dhaqan ay shaqo ku lahayn maadaama Ramadaan ayagu wax cunaa la soo bandhigay. waa maasantihiin ciidamada qaranka waxaan leenahay guuleysta. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.